kusoo dhawaada Qool Media Tv waxaad xogta qarsoon ku daawan doontaan ama aad ku dhageysan doontaan dalalka xifaaltama ee Qatar iyo Sacuudi Carabiya oo ay weeliyaan kuwa khaliijka Mareykanka oo horumar ka sameeyay cunaqabateyntii Qatar saarnayd muddada 3 sano ah iyo Bahrain oo iska fogeysay war lagu been abuurtay. kusoo dhawaada mar kale Qool Media Tv iyo xogta qarsoon. Sabti kaste waxaad ka heli doontaan warbixin kooban oo dhameystiran Qool Media Tv. Ciidanka Israa'iil waxay dileen canug 13 jir oo reer Falastiin ah. Dilka canuga yar ayaa yimid intii lagu guda jiray mudaharaadyo looga soo horjeedo deegaameynta iyo duminta dhulka xoogga lagu haysto ee galbeedka reer Falastiin. Cali ayaa yiri sidaan waa la toogtay waxaana xabad looga dhuftay caloosha canuga yar. Wuxuu ku dhintay isbitaalka dhaawacii soo gaaray awgii. Qaar kale ayaa dhaawacmay intii lagu guda jiray mudaharaadka xaqo-dirirka. Hay-adda xuquuqda caruurta u dooda ee UNICEF ayaa dhaleeceysay dilkan. Markii lagu daro labadii isbuuc ee lasoo dhaafay, Falastiiniyiin kale ayaa sidoo kale dhaawacyo soo gaareen. Cali ayaa yiri ma ahan canugii ugu horreeyay ee reer Falastiin oo la toogto, mana noqon doono kii ugu dambeeyay oo ay dilaan cadowga. Manama wuxuu beeniyay faalooyin uu sheegay wasiirka ganacsiga ee dowladaha khaliijka horraantii toddobaadkan, kaasoo uu ku sheegay furfurnaan ku saabsan soo dejinta badeecadaha Israa'iil ee Bahrain, taasoo ka careysiisay Falastiiniyiinta. Bahrain ma ogolaan doonto soo dejinta badeecadaha Israa'iil ee lagu soo dejiyo degsimooyinka dhulka la haysto ee reer Falastiin. Wakaaladda wararka ee dowladda ee PNA ayaa soo warisay iyada oo diidan faalooyinka uu sheegay wasiirka ganacsiga ee gobolka khaliijka horraantii toddobaadkan. Wasiirka warshadaha ganacsiga iyo dalxiiska ee Bahrain, Zayed bin Rashid Al Zayani, ayaa ka dhawaajiyay in ay u furan tahay soo dejinta badeecadaha, isagoo intaa ku daray in Manama aanu kala sooci doonin wax soo saarka laga soo saaray Israa'iil ama daanta galbeed ee la haysto iyo Golan Heights-ka. Hadalka wasiirka si qaldan ayaa loo turjumay, iyadoo wasaaraddu ay ka go'an tahay dowladda Bahrain mowqifkeeda aan lexlexadka lahayn ee la xiriira u hoggaansanaanta qaraarada qaramada midoobay. PNA ayaa tiri gelinkii dambe ee Jimcihii, iyada oo soo xiganaysa ilo rasmi ah oo ka socda wasaaradda warshadaha ganacsiga iyo dalxiiska. Bal markaana khaliijka Carabka iyo Qatar aynu eegno. Wadamada khaliijka waxay u arkaan in horumar laga gaaro xalinta khilaafka Qatar, Sacuudi Carabiya, Cumaan iyo Kuwait waxay rajo wanaagsan ka muujiyeen in go'doominta sanadaha badan qaadatay ee Dooxa ee afarta Carab ay soo afjarmi doonto kadib wadahadallo miro dhal ah oo ku saabsan arrintan. Wadamada xifaaltama ee Qatar iyo Sacuudi Carabiya oo ay weheliyaan Cumaan iyo Kuwait oo dhexdhexaada waxay rajo wanaagsan ka muujiyeen in xal laga gaaro khilaafka ka taagan khaliijka oo Riyaad iyo xulafadeeda ay ku go'doomiyeen muddo ka badan 3 sano. Dooxa. Qatar ayaa Jimcihii sheegtay in xoogaa horumar laga gaaray xalinta xiisadda khaliijka, laakiin waxay ka digtay in xiisadda aan si dhaqso ah loo xalin doonin. Waxaan ku gaarnay horumar cayiman waqti go'an, waqti ka badan sanad ka hor, kadibna arrimihii way gaabis noqdeen, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Sheekh Maxamed oo hadlay kadib wadahadallo dhacay Jimcihii oo loo qabtay hab online. Xilligan waxaa jira dhaqdhaqaaqyo aan rajeynayna inay soo afjari doonaan dhibaatada, ayuu yiri isagoo aan bixin wax faahfaahin ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inuu rajeynayo in Washington ay xal dhex dhigi doonto dalalkan, hase yeeshee waxa uu ka digay in uusan samayn karin wax saadaalin ah. Waxaan aaminsanahay in midnimada khaliijku ay muhiimad weyn u leedahay amniga gobolka. Dhibaatadan aan loo baahnayn waxay u baahan tahay inay ku dhammaato iyada oo lagu saleynayo is-ixtiraam. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu ka digay in xiisaddan taagan aan si dhaqso ah loo xallin doonin, wuxuuna diiday inuu bixiyo wax jadwala ama faahfaahin ku saabsan wadahadalka. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya ayaa niyad wanaag ka muujiyay in xiisadda oo bilaabatay 2017 ay hadda ku dhowdahay inay
dhammaato. Dhibaatadan aan loo baahnayn waxay u baahan tahay inay dhammaato, ayuu yiri Sheekh Maxamed. Laba ilo oo arrintan wax ka ogaa ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in goordhow lagu dhawaaqi karo tallaabada ugu horeysa ee lagu xalinayo khilaafka. Taliyaha gaarka ah iyo wakiilka uu sodoga u yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, Jared Kushner, oo ku sugan gobolka, ayaa la rumaysan yahay inuu dalalkan ku cadaadinayo inay heshiis gaaraan ka hor intausan Trump xukunka ka degin 20 Janaayo 2021. Si aad u hesho xogaha qarsoon aan soo gudbino, rukumo channelka oo subscribe gambaleelka furo, like na saar, siina share gare. Mahadsan. Intaynu ku kulmi doono xog midaan la mid ah, waxaan kaga tagnaa sida ay nabadgelyo. Ma salaama.